Wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa tilmaamaya in howlgallo isugu jiray duqeyn iyo weerar toos ah lagu qaaday deegaanka Gamboole ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Duqeynta ayaa la sheegay in lala beegsaday dhismooyin ay deganaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, iyadoo 9 gantaal lagu dhuftay dhismooyinkaas. Duqeynta kadib ayaa la sheegay in ciidamo ay ka degeen diyaarado howlgallona ay ka fuliyeen deegaankaas. Weerarkan qorsheysnaa ayaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare xoog leh oo soo gaaray sida la rumaysan yahay Al-Shabaab iyo dad deegaanka ah, waxaana fulinayay howlgalkan ciidamo Soomaali ah iyo kuwa kale oo la tilmaamay inay ahaayeen kumaandoosta Mareykanka. Dadka ku nool deegaankaas ayaa waxay inoo xaqiijiyeen inay arkayeen meydadka 4 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo 2 ruux oo rayid ah. Hase yeeshee si dhab ah looma oga tirada dadka ku dhintay gantaaladii lagu dhuftay xarumaha la sheegay inay deegaansanayeen mas'uuliyiin ka tirsan dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Al-Shabaab. Deegaanka Gamboole ayay sheegtay dowladda Mareykanka in saldhig weyn oo u ahaa dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Al-Shabaab, mana jirto ilaa hadda war ka madax bannaan oo ka soo baxay Al-Shabaab marka laga tago sheegashada dowladda Mareykanka iyo ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee howlgalka halkaa ka fuliyay.